fell in love with football when I was very young. I fell in love with waxaan jeclaaday football kubadda cagta when I was markaan ahaa very young mid aad u yar. Muuqaalkan maanta waxaynu ku qaadanaynaa wada sheekaysi dhex maray ciyaartoygii hore ee xulka Ingiriiska iyo kooxda Manchester United ee David Beckham iyo Mbappe. Young, I think that coming from England, it's part of our culture. The same for you. Isagoo markaas sii wata hadalkiisii David Beckham ayaa wuxuu yiri I think waxaan u malaynayaa buu yiri coming from England kasoo jeedka England inaan ahay markaan Ingiriiska u dhashay it was inay ahaydba a part of that culture inaan dhaqanka ka mid ahaydba yacnihii kubadda in ciyaaristeeda iyo jacaylkeeda iyo in dhaqanka ka mid ahaa ayaan u malaynayaa same for you sida adigoo kale. But my dad was a huge Manchester United fan, huge England fan. David isagoo hadalkiisii wata ayaa haddana wuxuu yidhi my dad aabbahay wuxuu ahaa huge Manchester United fan taageero weyn oo Manchester United and huge England fan iyo taageero weyn oo xulka Ingiriiska. And so from a very young age I always loved football. It's all I ever wanted to do. I wanted to play for Manchester United. David isagoo sii wata hadalkiisii haddana wuxuu raaciyey from very young age laga soo bilaabo daadii yaraantii I always badanaa anigu loved waan jeclaa football kubadda cagta. It is all I ever wanted to do. Kaliya waxa kaliyaan doonayay inaan sameeyo. I wanted to play for waxaan doonayay inaan u ciyaaro Manchester United. I wanted to play for England and luckily I was able to. I wanted to waxaan doonayay play for inaan u ciyaaro England xulka Ingiriiska. Luckily nasiib wanaag I was able to when I was able to. My dad is big fan of football. Mbappe hadalkiisu wuxuu ku bilaabay my dad aabbahay is a big fan of football oo taageero weyn oo kubadda cagta. Zizou, you can't touch Zizou. He's more important than the president in France. haddana Mbappe wuxuu soo qaatay halyeeyadii soo maray xulka Faransiiska. Wuxuu yidhi you can't touch Zizou, ma taaban kartid Zizou. He isagu more important than uu ka muhiimsan yahayba the president in France, madaxweynaha Faransiiska. The president in France. I was lucky enough to play with him. I was lucky enough to see him play. Beckham ayaa hadlay imkana wuxuu yidhi I was lucky enough sib ayay yahay to play with him inaan ka kala ciyaaro and I was lucky enough to see him play sib ayay yahay inaan arko isagoo ciyaaraya